السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو هذا مركز صاحبيال muuqaalkan waa kii labaad ee ku xigay sidee ay u shaqeeyaa suuqa sarifka lacagaha qalaad iyo muuqaalkii hore. kanna waa muuqaalkii labaad sidee ayaa uga mid noqon karaa suuqa forex trading ee adduunka. yacni suuqan si aad uga mid noqoto waxaa u baahan tahay steps yar inaad martid. yacni suuqa hadda iska soo gal waa iska soo gali kartaa, waa option kuu furan, qof ma kaa xigo. yacni go-aankaas kalena adaa qaadan kara, laakiin steps zero rules ku dhisan ayaan kuu sheegaa. steps ruleskaas ku dhisan haddii ay ku anfacdo, haddii ay ku cajibiso, haddii yani mid kugu haboon uu yahay, yani qofkii fursadan loogu talagalay suuqan qeyb ka ahaan kara ayaa taa. laakiin haddii shuruudahan aragtid inay isku anfacayn mise kugu adkaadaan, fadlan yani waa ku dhibi doontaa dhuutidii inaad ahaato trader buuxa, mise isku filnaada, mise suuqan guul ka gaara, mise wax badan sameeya. marka shuruudahan ayagoo wax weyn saas u amaaha, laakiin waxay kaaga dhigantaha markii aragtid mid go-aan adiga kusiin karta, mid yani adiga ku dhigi karta yani waa waxaan waa wixii lagu talagalay gal, mise waxay noqon kartaa mid ku dhigi karta yani waqtigii hadda aa geli lehed waxaan maaha, yani waa waqti kale inaad u raadiso haddii yani aad qof iska mashquul badan oo kale aad tawakkal. marka sidee ayaa uga mid noqon karaa suuqan forex? yani si aad suuqan uga mid noqotid waxaa u baahantaha inaad wax yar ogaatid. waxaas markaa ogaatid kadib go-aan waa qaadan kartaa, oo qodobkana ugu dambeeya ayaa go-aanku ku salaysanya. okay, ko inaad usoo diyaar garowdo barashada suuqan. yacni inaad suuqan marka hore barato oo waqti geliso, usoo diyaar garowdo, yacni aad soo ogolaato, yani waa shuruud koowaad. okay, isla qodobkaas koowaad intaa ku dhex jirno ayaa wuxuu yahay arrinka ugu muhiimsan ayaa ah inaad tahay qof ay ka go-an tahay barashada suuqan. yani dadka qaar waxaa jiro aysan ka go-nayn yani inay wax bartaan, yani isdhahaye meesha ama dhaqaale yarni kaasoo gali karaa, yani amaad suuqan wax ka ogaan kartaa keliya usoo galaayo. yani taas haddaa tahay gobolkii meelahaas iska tagi kartaa, yani xogtaan oo gaagaaban iska raadin kartaa, kadib waa ka laaban kartaa. laakiin haddii aad waxaan mustaqbaliyan iyo business ahaan aada u rabtid, waa inay kaa go-antahay inaad barataa suuqan iyo nidaamkan iyo waxaa la yirahda si u shaqeeyo. sidoo kale ha usoo gelin koorsadan ayaa tijaabinaya ama ka wardoonaya ama sida igu haboonaan kara ayaan fiirinaya camal. yani koorskan haddaa aragtid ayadoo yani dad gadgadanayaan, adina ha iskaba soo dabagalin. yani koorskan oo kale waa ama anfacahaya ama yani saas yahay, waa ku wareereysa marka ayadana saas ay noqoto. marka yani marka hore ma ogasha inay diyaar ma u tahay inaad adigu barato? yes, haddii aad diyaar u tahay imo markaas. laakiin haddii aad diyaar u ahayn aysan kaa go-nayn, sidoo kale marka ha usoo galin inaad koorsadan iyo waxaan aad ku mashquulsha aad tijaabiso. qodobkeena labaad, ma rabino muuqaalada oo dheeraada. qodobkeena labaad waxaa waaye timetable. yani waa timetable-ku waa furaha koowaad ee kuu sahlaya inaad suuqan qeyb ka ahaato markii aad waqti cayiman aada u sameyso barashada ama trading gareynta suuqan. yani inaad waqti siiso, trading gareyso, isdiyaariso, waxay noqonaysaa yani inaad timetable soo sameysato. yani suuqan aad iska soo gelinin. yani for example in waxaa laga yaaba shaqeysid subaxdii shaqa markaa ka timaado, waxaa laga yaabaa inaad gelinka dambe haafkiisa imaatid. gelinka dambe haafkiisa at least waxaa laga yaabaa inaad maalmaha qaar waxbarto, maalmaha qaarna aad waxbar. marka timetablekaas isku habe, maalmahaas aad galabkii iska timaado kale aad iska jawi deganta xaafadaha. yani waqtigaas oo kale computerkaada iska soo qaado 2 saac 3 saacadood 10 daawo practice gare. tis waa qeyb kamid ah yani timetableka oo kale inaad samaysataa, inaad u samaysato waqti u gaaro oo maalintii 2 3 4 saac yani intii noqoto u heli karta aad u taxliiliso ama 10 ku daawato ama ku celceliso ama wax badan wixii aad kusii ogaato, yani aad kusii celceliso. markaas waxay noqonaysaa inaad qof timetable sameeyey, yani usoo horay inaad yani waxaan waqti geliso oo fahanto oo aad barato, kadibna xirfad waa ku noqonaysaa. qodobka saddexaad, inaad ku jirto academic. yani wax walba ma jiraan wax qof iskaga soo kaa degayso ma jirto, ma fahad. laakiin waxaa u baahan tahay inaad academic ku jirtid oo yani systemkaas aad ilaa iyo aad ku dheganaatid, aad raacdid rule to rule, aad fahantid, aad concept fiican ka dharagtid. kadib markaas intaas aad ka dharagtid waxay ku sahlaysaa inaad noqoto qof yani wax meel laga soo bartay, yani la dhihi karo
hadhow marka qofku dhaho yani cilmiga xagga aad ka heli kara aad dhihi kartid oo kale yani ruuxan koorsadaan dhamaystir halkaas aan ka bartay oo waxaan iga wada saaciday oo iga wada anfacday. marka haddii kale laakiin dhalinyarada inteeda ugu badanna waxaa lagu wareeraa waxay tahay yani telegramka oo kale waxaa lagugu soo diraya cashar mid cadda cashar xay nidaam gaara mid kale soomaali mid kale wixii markaad wada daadaawato meela u goyn maade adiguna marka waa wareeraysaa marba meel inta shaashadahaada waa iska tira badan yihiin marka looma baahno taas oo kale waa inaa hal nidaam oo kuuqaas aada ku dheganaata. qodobkeena afraad ayaa inaad haysato qalabkii aada wax ku baran lahayd. yani wax walba wuxuu u baahan yahay yani qalab, wax adduunka iska jira ma jiraan moogta yani qalab la-aan wax la-aan aad intaa iska soo gashaa horey shaqa ka bilaabaysa. so waxyaabahaas maxay noqon karaa marka inay haysatid computer mise ipad mise telefonka. yani computer iyo ipad xitaa waa ka maalin karta telefonkaada, laakiin waxay ku xiran tahay shaashadaada inay weynta. mar hadday aad tahay qof waxa mustaqbal kale mise rajo kale yani kulama talinayo telefon iyo waxaas iyo computer ipad-kaada waxaas inaad diyaarsato waa qeybta ugu muhiimsanayda. qodobka shanaad markii aad afartan qodob soo fiirisid haddii uu ku anfaco iyo haddii kale go-aanka waa bilaabi karaa ama ma bilaabi karo, go-aankeeda adaa iskale. yani markaas qofkii yani waxaan aniga kuu sheegay intaas yani ama waa anfacday oo waa bilaabay mise ma anficin oo ma bilaabin. yani labadaas option wa haddii ku anfacday soo gala koorskan soo bilow qeyb naga noqo, laakiin haddii isku anficinin oo waqtigaadana kugu muhiimsanin iska joog fadna. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.